dadka Soomaaliyeed iyo nidaamka qabiilka marna ma kala maqnayn. haddaad raadraacdid bulshada Soomaaliyeed waxaa sal iyo baar u ah qabaa'ilada ay ka soo jeedaan. qabiilka ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyaa doorka taxanaha ahaa ee uu dagaalada ka qaatay. haddaba si loo heshiisiiyo bulshada iyo qabaa'ilada Soomaaliyeed ayaa waxaa la hirgeliyey nidaamyo kala duwan, waxaana nidaamyadaasi ka mid ah nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 loo yaqaano oo ka kooban 4 qabiil ee ugu waaweyn iyo qabaa'ilada kale ee soo weheliya oo barka soo harayo la iskugu wada geeyay. dawladda hadda jirta iyo mas'uuliyiinta dhaqameed nidaamkan ayay ku howlgalaan, balse odayaasha barnaamijkan ku arki doontaan waxay door bideen in qabiil kasta uu awood buuxda helo. ururka tubta nabadda iyo maxadka nolosha iyo nabadda waxay isku keeneen oo ay la shaqeeyaan koox odayaal dhaqameedyo ah oo qabaa'ilada oo dhan ka socda, mowqifyadooda siyaasadeedna ay kala duwan yihiin. annagu haddaan cadaaladda ka tagno hadda qof noo soo istaagaya lama arki ogow. kow iyo 20 sanay dagaal ku jirta. ragii maanta waxba maayo, dumarkii tii jaad gato, tii shaahi gato, tii nyaanyo gato, dumarkii lagu noolyahay. nabadaa nagaada leh. haddii meel lagu nagaadood aragto nabadaa meesha ka jirta. tan iyo burburkii dagaalada sokeeye mas'uuliyadda saarnayd qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa ku yimid isbeddello dhanka howlaha ay qabtaan. oday dhaqameedyada ayaa ka mid ah dadka waxqabadkooda ee isbeddeshay, isla markaasna ay korortay iyagoo diiradda saaraya hanashada nabadda. axmed maxamed barre oo ku magac dheer macallin barre ayaa sharaxaya doorka ay odayaal dhaqameedyada qaateen ilaa iyo markii uu burburka bilowday. macallin barre wuxuu ka mid yahay odayaal dhaqameedyada Soomaaliyeed. annaga oo dalkan uu burburay, magaaladan waxaa soo galay dad reer baadiye ah oo aan waxna qoraynin waxna akhrinin. dadka waxa qorada iyo waxa ay akhrinaayeen waxay sameynayaan kaliya inay wax dilaan ay tahay, oo qori wata oo aan qabiil kaliya ahayn oo magaca Soomaaliyeed wata. markii ay soo galeen tala fara waa ka baxday. dawlad kale celinaysa male, maxkamad kale celinaysa male, saldhig kale celinay male. saldhigii iyo maxkamaddii iyo jagadii oo dhan waxaa isku qaatay nabadoonka markaas meesha jooga. 20 sano waxaan ahayn baliiska dalkan jooga iyo nabadoonka jooga iyo maxkamadda joogtaan ahayn. dablay aan heebtooda laqoonba qof dishay baa la leeyahay. reer baadiye yaal oo roobda ayaa qof laga dili jiray, baadiye cilla ajees yaal. markii la dilo qofkaas asbuuc ka bacdi in hebel baa dilay baa la dhihi jiray. meeshii raadna ma lahayn, markhaatana ma lahayn, mugdi bay ahayd roobda ayo nin baa la dilay, meel cillaana way ahayd, waana la heli jiray. magaalada intaas Soomaaliyeed qof joogtaan baa nin lagu dilayaa. dablay aan heebtiisa laqoon baa dishay af maahe wax noo sheegaan ku gudoomiyaasha degmada. waxaan u dareemay qof colaad raba inuusan jirin. shakhsiyaadka ku jira dadku ka bato markii colaadu ka aysay beelihii qof walba colaadii waa ka soo horjeeda. wiilka uu dhalay qofku ku arka wuxuu leeyahay waa tuuga hal qabto, waa fidnawada hal qabto. dadkii marka colaadii waa isbedeshay, nabad bay isku bedeshay. laakiin dawladdiina xoog ma yeelan oo dawladda lugaheedu isku taagtay ma ahan. laakiin waxaa weeye odayaashiina waa ku dhex jira, ummaddii waa isfahantay. odayaal baa ku dhex jira ilaa waqooyi galbeed, ilaa meesha la yiraahdo raas gamboon inta ku dhex jira odayaal baa ku jirta. odayaashuna waa is ogyihiin. aniga waxaan qabaa dad guddi ah loo diro oo halkaas soo qabtaano ee warbixinteedana aan keenano. markii la rabo dhibaato dhacday in la xalliyo waxa la adeegsado waxaa ka mid ah ikhtiyaarta meesha joogta. iyagaa lala hadlaa, dhibaatada ha istaagtaa la yiraa. markay istaagto ayaa la yiraa marka garoonka waa laga soo degi karaa. markaas ikhtiyaarta la diraa, wixii dhaqaale la heli karo laga daba diraa, sidaasaa lagu xalliyaa. macallin barre ayaa sharaxaya halka uu ka soo askumay fikirka golahan ay isku kaashadeen. waxaan gogashaas u fidinay in
ayna waxba nugu tarayna 20 sano qabiil oo qabiilka intaan ka baxno aan u gudubno ee Soomaaliya qaran aan u gudubno anagoo sidaas wadno ayaan waxaan aan isbaranay tubta nabadda marka waxay noo fududaysay in odayaal laga keeno ee Garowe in odayaal laga keeno Garbaharey in odayaal laga keeno ee Dhobley seminar aan isla galno odayaashaas aan isfahanno ee wax isku darsano oo odayaal noqdo dhibaatadii Dhobley ka naqato intii gaalkacay ka dhacday inaan wada xalinayo ilaa iyo markii ay isku yimaadeen waxay horumar ka gaareen inay wada shaqayntooda ballaariyaan arrimo badan oo cakiranna ay dhex galaan odayaashan waxay isku yimaadaan toddobaadkiiba mar halka golaha odayaal dhaqameedyada ballaaran oo 50 xubnood ka koobanna ay bishiiba mar kulmaan waxaan isticmaalnaa horta shiriraha la qabtaa shirarkaas aan qabanayno marmar annagaa si khaas u qabsanno marmarna hay-addan nala jirto marmara annaga intaan shir khaas u qabsanno hoteelada aan ku qabsanno aan waxaan samaynaa waxaan u yeernaa tviyaalkaan u yeernaa waxaan u yeernaa idaacada waxaan idhaahdaa waxaan sheegnaa waa baahinaa marka warkayna sidii loo maqlo dadka tviyaalkeena waa fiirsadaan raadiyaashin waa dhegaystaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno xoojinta doorka dhalinyarada ee nabad dhisidda barnaamijyada nabadaynta ku salaysan oo ay odayaasha saxaafadda ka baahiyaan ayaa waxaa si joogto ah u dhagaysta koox matalaya bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa kooxdaasi loo xil saaray inay cabbiraan faa'iidada barnaamijyadaas qaybna ka qaataan sidii loo horumarin lahaa laakiin markaan muddo ku dhex jiray oo aan dhageystay idaacadihii barnaamijyada ay noo dhiibeen saameyn weyn horta ugu yeelatay marka ugu horreysa waayo problemka oo saxda oo iga maqnaa oo muxuu ahaay oo la saameynaayo aan meesha ka ogaaday midda kale barnaamijyada idaacadaha ka baxo oo Beesland ay sii dayso waxaa ka mid ahaa gabayo riwaayado yaryar oo majaajilooyina barnaamijyo oo ku saabsan bulshada taabanayo markay dhageystaan isbaaradii waxay meesha ka caddaatay waxay ka ogaadeen in isbaarada shakhsi uusan dhiganin oo family dhan oo dhigto riwaayadda siday turjumayso waayo waxaa arkaysaa nin isbaaro dhigtay isbaarada markii lagu dilo qolo kale ay soo weerarto ama nin gaari wato isbaarada oo intoo qori soo qaato iska celiyo oo ninkii dilo familkii o dhanaa meesha waxay leeyihin diyaan u qaadanayna agayaan oo dhan booskeen dhanaan diya u qaadanaynaa marka isbaarada horta family ay ku saabsan tahay family ay ka soo jeedaa waxaana u asal ah qof walba qutlyoonkiisa meeshaas ku jiro oo nin walbaba qabiilkaas ka tirsan wuxuu soo raadinayaa inuu meesha wax ka helo odayaasha waxay la xaajoonayaan isbaarooyinkan iyagoo dhexdhexaadinaya laba shakhsiyood oo arrintaas isku haysta waxayna doodda dhexdhexaadinta u dhacaysaa qaab gabayaysan mudanayaal iyo murwooyin kulankeenna doorka ah dantii aan isugu nimi dulucdeedu waxay tahay dulmigaa isbaarada lagu dhibo dadweynaha xaludoonisteedii si loo helo dariiqiyo dawgaan u mari layn dabargoynta cudurkaa waa inaan ka doodnoo tala daawo dhalisoo dalkayaga dhammaantii isbaaradan isdaba taal degdeg looga qaado shacabkuna ku diirsado waa inaan damiirkeed dooddeeda fulinaa haddaan kaalintii dumar dareenkayga ku cabbiro dumarka waa ka mamnuuc inay dariiqa isbaaro dadka ay u dhigtaan u dabeecadna maaha dadkeennu waa og yihiin iyo dunidoo dhammi taase wax haddawga xirteen intuu dalka hooyo dhammaan wax haddawga xirtee dalka hooyo dhammaan intuu daadshay isbaaro dadweynihii ku gumaada waxay haysteenna ka diirta waa raggee ha iska daayo dunuubtaas ah bareer saaxiibkay dalmarow ma doodeennu ahayd daacad inaan hadlayno mase daroryaan iyo been iyo istabaalis ahayd midba haddaan daacad hadlayno duqdaas ma ahan cadaalad war ha nugu dhih warka ay daldalaysiiyo dembiga ragga ay saarayna dulmaa warka horta dad hadduu isu fiirsado
waxay doonayaan iyo lama gaadha daawada isku duubni wada jiraa lagu suuliyaa dulan docda kuu fadhiistee dumarkaa sidaan iyo nimankaa dembiile ayaynaan ku daalin duul islaama baan nahay dariiqada isbaarada dadka loo fadhiistee maalka looga diirtay dilka sabab la'aanta iyo naxariis darraanta diinteennu ma oggola diinteennu ma oggola risqkii ka doonana kuma dego waqiiso iimaankaa dalooshama intuu dunida joogana dulli iyo dhibaataya darxumu ku noolaan dallana ma laha aakhire haddii loo kitaab dayo waryaa igu diidan ما شاء الله عدنا هي هذيك ما شاء الله ninkaas waa dalamsade ما شاء الله runtiibaa ka balowday ما شاء إلهي هداي محو ديرada saaray dawadeeda isbaaro dawgi loo maray la diiriya hadda sheegay ma sheegay diiriya hadda sheegay haye waxa loo xaldayayo waa diricyadan dhalayo iblis duufsaday weeye wiilasha inaan ka dabibno dulligay ku jiraano bulshadana aan u danayno iyagana doc kale aan u jahayn bulshadana aan u danayno wacyigelintu waa doore ya hawsha inaan ku dadaalo hadda aan ku dareero dadweynuhu soo mahaboona arrimaha bulshada ay odayaasha dhex galaan isbaarooyinka kuma eka waxay shirarkaasi ku wajahaan inay hal mawduuc oo markaasi taagan diiradda saaraan shirkan waxay ku falanqaynayaan dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay iswaayeen caruurtii iyo aabahoodii waxay iswaayeen caruurtii hooyaalkoodii qaar jidkay ku dhumeen qaar si kale wax u samaysteen marka wax xanaanayn ma laha ilaa inta jeer waxaan ka hadalnay marka ay jirtay dawladda oo xoogeedii waxa jir meel la yiraahdo orfano cunuga aabiisa markuu dhinto ninka oo kaab qabiilka waa wadi jiri kaab district uu geey jiri waa la qori jiri orfana la geey jiri orfanaas muxuu aad wax ku bari jiri labiskiisi wixii soo dhan laga fikir jiri marka cunug maanta haduu qado barin oo qado wax asla wixii loo dir waayelay barkii baayga ku qasbaya waxaa shirarkaasi ka soo qayb galo xubnaha bulshada ugu firfircoon saameyn wanaagsanna ku yeelan kara sida culimaadudiinka iyo imaamyada masaajidyada imaamyada waxay fursad u haystaan inay waxyaabihii shirka looga wada hadlay ay dadka masaajidyada yimaada la wadaagaan إنسانكم الحق له إنه نولاده سي شرف وكون نولاده إلى حلول قد كرمنا بني آدم يعني بني آدم كشرف حرمة أيام ويانا ما كعروت البني آدم كسي كمديهم إنه نولادان نلاش على أساسي أو حلوة وأكمل مثلا إنه يوحنا الله سيو عافمات وذا إنك فكره كدبنا محايد وحبر شغل ذا إنك فكره مستقبل كذا إن الدياريو إلى قفك يعني كوين هذا وأسوي سهل في العدنا إن قعدت لوسي هاي مركوين هذا وأسوي هراي لوسا تابراي وهوشي لوسا قطينا أساق عيال مركز دمنوليشيسا سيب بالعمد وأنا سيب المكان وأصنع ودار وأنا كواسي والفقير كذلك لا يستطيع أن يكون مثل الغني لأنه لا يجد هذا اللباس الغالي أما في الحج فالحاج الغني يلبس لباسا والحاج الفقير يلبس لباسا وهكذا هذا تدل على المساواة waxaan sameyn anaga taa culimo u diin la shaqeeya jiro oo masaajidaha qadiibay ka ah oo aan ku wacyi gelinay oo hay'adda aan u kaashanay oo aan niray jimcaha khudbada waxaad ku soo qaadanaysaa nabadda qaabka ay odayaasha u shaqo tagi jireen ayaa sidoo kale nidaamkiisa la habeeyay iyagoo ururka tubta nabadda ka kaashanaya waa kan Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ururkaasi agaasimo ka ah oo faahfaahinaya wada shaqayntooda odayaashu markii hore waxay ku kala jireen laba xerada muxuu ahay muqaawamada iyo xerada dawladda ayay ku kala jireen markii dambe oo isu yimaadeen oo ay isfahmeen na waxay ka shaqeeyeen labadii dhinacba way ka shaqeeyeen waxay kaloo ka shaqeeyeen beelihii ay markii horeeto isu xil saareen inay nabadda gaarsiiyaan had walbana dhibaatada ay rabaan inay xalliyaan cidda ay la gasho inay u tagaan dhibaa meel ka dhacayo annagu ma nihin hataa odayaasha oo ku kooban dhinaca dawladda annaga waa baxnaa aniga hadda markaa liga soo caawiyo shabaab uu joogo waxaan xasuustaa waxaa jirtay mar dagaalka magaalada muqdisho oo aad u cuslaa oo jidadkii oo dhan ay xirmeen dadkuna ay dhibaato badan kala kulmeen markaas
odayaashu iyagoo wada jira ayay waxay u tageen madaxdii shabaabka ee markaasi magaalada muqdisho joogtay si ay ugala hadlaan in dhinacooda ay khafiifiyaan jidadku in la mari karo waxay kaloo u tageen dawladda ayay u tageen waxay kaloo u tageen madaxda ciidamada Amisom ayay u tageen waxay intaa ugu tagayeen waxay ahayd dhibaatadii jidadka xirxiran ee dadka dhibaato weyn ku keentay oo kala ganacsan waayeen in la khafiifiyo ama la wada furo ayay u keeneen marka odayaashu yani su'aalaadkoodu faa'iido u dhalay waxa waaye iyagoo wada jira in ay had iyo jeer meeshii ay arintu la gasho ay uga daba tagaan iyagoo ixtiraamaya had walbaba kooxaha meesha jooga ciday doonaan ba noqdeen maxamed uunsade wuxuu tilmaamayaa faa'iidooyinka laga dheefay isku imaatanka odayaasha iyo howlaha ay qabtaan fikrada badanaa ka faa'iidaysanay bil hor cabsi waxa ugu jira dadka markaad u dagtiin ama ay bahadal xunni yiraayn mas ama ay dagaal binu soo qaadan mas ama ay baniyasan waxyaalo badan oo ka cabsi qabnay waa jiri laakiin cabsi kama qabno marka waa isbaran waan isfahan ad saaxiibana marka hore waa laga cabsanay waxa la dhigay ama lagu shaqoola ama lagu waxyeela waxaas waa ka baxnaa هذا وجهي الله يقانا دتكي الله يقانا حافظي هلا قلي برك عمر جديد لما هذيك ولا هذا دافع هذا بور بيلو افقوي برك حال انتو كيف ما دقنيني حافظها ولا سفير سنه ما انت الحمد لله حافظها اسكفر بيت waanaguna dhibaatooyin ka jiraan nabadgelyo darro ay wadankii jirto wax badan ay jiraan ummadii wali ay rabto in la isku soo celiyo ay tahay oo ummadii wali shakiga ku kala jiro aan rabno dadkii badnaayo guryahan adariska ku ahaan jirteen oo waxa inay soo laabtaan si nabada wadankoodii ku dagaan muxuu yahay doorka haweenka ugaada doorka aan ka qaadan karno wuxuu yahay in aan gabar kasta gurigeedii hore ay u degneed ay ka barkacday amba ay ka qaxday ay meel kale ka aaday hadday timaado inaan soo dhaweyno oo gurigeedii si saraaxad ugu soo wareejino inaan tusno kalsoonida degmada ay qabto iyo wixii aan nahay in aan la qabano wax allaala wixii ku soo noqonaya degmadaanita aan soo dhaweynayno oo hadda dad badan loo yimideen oo guryahoodii laga haystay ee nabadaa dhacday guryaheennii aan rabnaa guryahoodii si sharuud la'aan ah inaan dadka uga saartay ay dib guryahooda u dayactirteen ay u degeen degaan ahaan degmada waabir markaan nahay hawshaas farahaan kula jirno ninkii dhaqaalaha taa aan haysan waxaan hadda diyaar aan u nahay inaan wax iska aruurino gabdhaheena aan wax siino oo ninkaasaan ficilkoo isaga ku jira isla mar ahaantaas aan kaga reebi karno beeskoo isaga hadda taagan inaan hoos ugu soo dejinaan diyaar u nahay isbedel weyn waxaan u dareemaynaa hadda daafeed haddii oo wax dhacaan oo nin heer xamar ah iyo dadkan isdagaan halkaan teleefonka dira war odaygii hebel ah liigu yeeran leh teleefonkiisaan haystaa war dhegeyso hal hebel baan ahay beritaan soo socda saacadaasaan imaanaya google hala dhigo horta ma dhihi karin ninkii maqaan yaan u leehay yaana google ii dhigaya teleefon yaan u diraya haddaan aadan yaan qaabilaya aqoon buu guuliye maanta aqoon u leh oo baydhawaan teleefon u diraya oo gaalkacyaan u diri karaa oo hargeysaan u diri karaya hore ma jirin si ay faa'iidooyinkaasi u sii kordhiyaan ogana soo khibrad kororsadaan ayay odayaasha waxay booqdeen odayaasha dhigooda ee Somaliland hargeysana waa aadnay seminaar aadaan ugu faa'iidaysan intaa jeer marka xataa ilaa boor ma garin waxaan ku soo baranay odayaal oo dhaqameed ah xiriiraan la yeelanay waxyaalo badan ay isdhaafsanay filim xataa waa lagu soo sameeyey marka meeha aadaynay bilxaqiiqa guul weyn ka gaarnay hargeysa runtii odayaalan iska siinaa iska soo baran waana u sheegnay waxaan idinku nimadaan arday inaan idin naqano saad waddankeena u dejiseen yaan idinka rabnaa inaad noo sheegtaa saan u dejino waddankeena hiddaan nahay reer waxaan ka soo baranay
kolley markaan inta nimid wixii oo annaga maskaxda ku soo qaadanay waa u sheegnay annaga golaheenna waa u sheegnay waxyaabaha ugu adagoo ugubkaahoo hadda na soo maray wixii dhimanu waa meeshooda waxyaabaha na soo maray oo ugubkaa waxaa ka mid ah in qof loo dilo wax la yidhaahdo in qof loo dilo isagu waxa uu yahay waa wadaadaa loo dilaa waa askariyaa loo dilaa waa dhaqanka noocaas dawladda u shaqeeya adiga sow hadda qolo u shaqayn maysidoo kama socotid waxaas aad tahayaa laga yaabaa in laguu dilo mushkilooyinku marka ayagu cidina uma abtirid karto khaasatan mushkilooyinka waa kuwa dastuuri ah sidoodaba oo gala khalad dawladdu ama gelaydo ama laga gelayo kuwana waa kuwa soo jireena oo dhaqan ah oo qabaa'ilka iyo beelaha iyo deegaamada dhexdooda ku jira iyagaasaa kuwana waxay yihiin kuwa dhacdooyinkooda la yaqaan kuwana waxay ku yimaadeen si cusub oo aan la aqoon maalan hadda qaanuun ahaan marka la yidhaa ummadaha caalamka ku nool kuwaa waxay yaqaaniin wax annagu qaanuun u ah oo ay waafaqsan yihiin wax annaga haddii naloo sheego aan la yaabayno laba nima isguursan kartaa ay ka mid tahay dhaqamadaasoo kale wuxuu ego markay soo baxaan waxaa loo fiiriyaa xalaal loo baadigooba barkee barnaamijyada hore lukuma leh laakiin inta kale mushkilo kasta oo timaad dil ha noqoto dhac ha noqoto kufsi iyo boob ha noqoto aflagaada ha noqoto hanti iyo milkiyad iyo wax laysku sheeganaayo qaabka markaas ay u jirto ayaa waddada ay mari karto la marsiiya waxaa sidaasay tahay weli lala daala dhacsan yahay laxaajoodka dadka la haybsooco sida uu tilmaamayo daahir xasan faarax oo ka mid ah oday dhaqameedyada dadka beesha shanaad waana la yeesi jiray waana la dili jiray xaqiyagaana loo diidi jiray dhibaatooyinka waa la dagaalami jirnay annakana waxaan dili jirnay annana waana la dili jiray waasina laka badnaay hada jir waana laka xoog badnaay laakiin adigu intii dawladnimada la gaaray xoogaa oo ilbaxnimadu soo fiiday waxbaa soo kordheeyay waa haloo kaasho dadle iyo dadle warnaga daawo boonta iyo midgaha iyo qurunka halalaayo labaduba waa jireen hase yeeshee adugu wixii waa soo karaayaan hadda naftiga meeshii hore ma joogto laakiin dhibkii weli waa jira dad badan baa weli ictiraafsan oo aan ogolayn dadkan in la xoreeyo oo la ogolaado oo la guursado oo hataa gabdhaha in la guursado u diidan yacni bees awal beel ahaan iyo dad iyo noloma oqoonsanayn yacni hadda waxaa yimid beesha shaqaad waa aqoonsi weeye wax badan baa naga maqal annaguna waxaan garanay marka inaan beesha shanaad hadda qaadanno oo ogolaanno waaba iyaba kama daraysay marba haddii beel ahaanba lagu aqoonsaday waxaa kaloo naga badanna tartiib aan u raadsanno balse isutagga odayaasha waxay anfac u keeneen arrintan iyadoo lagu dadaalay in sumcadda dadka la haybsooco kor loo qaado waa kan cabdikariin ibraahim ibrow mar waxaa jirtay ninka hadduu madhawaanya inuu qarsado midgaan haddii inuu qarsado midgaan uu la qarsan jiray laakiin maanta anuu midgaan uu kuley sababta inaad waxba dheereen buu ogaaday anigana waa ictiraafnay inaan waxba aan dheereen xagga diinaan walaala kanay aakhire ninkii ilaahay wuxuu shaqaysto la tagaa ninkaas hor nasba odayaasha waxay ku adkaysteen inay howlahooda ku wajahan nabadaynta dalka iyo dadka Soomaaliyeed sii wadaan taasoo xilligan aad loogu baahi qabo waxayna adeegsadaan suugaanta la yaqaano sida gabayada ummadoo kale maana isku meelna u jeeda haddii xaajo muhiima muftaaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meertada la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii la ismaagana marba la iscafiyaa ma dhammaato colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdu dan maahan qalbi meel ku adkayso badaqeydka horseediya maslacooyinka diidana mar rastuu salfadaa dagaal maatada weeqana makaankuu dumiyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jiraa hadal aad u macaaniya mowqifaan soconayna mooye suu noqon doonee soomaalaay dan muhiim iyo haddaad waana maqlaysid wax maamuusan lahayn oo magacoodu ku raaciyay maal gargaar lagu sheego meelna kugu filnay inta aad mahayo iyo meeyay ku jirtaan mugdibaad hurdaano marka qud lagu keenaya maquunaad sugataano madaalkii idin siiyad magantiisa tihiin waa mana sheegad sheeyaha mihintoodiya beerta waad ka maarmi kartaan dad iyo ma ismaqashaan oo idinkoo isku maanaho isku mowqif ku taagin mawlahay barida
maanta waxaan u jeednaa Soomaali in ay rabin dib dambe inay u noqoto in ay rabto inay kacdo in Soomaali maanta caalamka la tartanto nabadda maanta Soomaaliya ay ku jirto wax la qiyaas kara maaha haween 6 saac 7 saac aad ku lugeynaysaa ilaa xaafadda tagaysaa wax la ma jirto maalin cad ma socon karin maalin cad ma socon karin أنتم كمان لا كدعين مجرو ما صومالي متو جوه وأنا قال هوري أنا بقصدي مركا أنتم كمان لا ما أنت إله وحن كرجينا إن صومالي أي نقط أعلى صومالي وسما هجرتي إنسان ما ينقطي إن لقى شيء إن شاء الله تاريخي نبضي معاني نعودوني نبضي معاني نعودوني نقائي برواقة نمعلق قبوبة التناسي مانو لغجب النفقادة نحاريست إيباي نيدنا أروني نطيد عالكو جحرو رجاء النسخة مايم وهنا وليسي نبضي معاني نعودوني